السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا مركله fractionkii ma ahane qaybtiis labaad xisaabta oo ah aan ballan qaadno decimalis. waxaan ka bilaabaynaa horta decimalis maxaa loola jeedaa. waxaan ku xijinaynaa markaas sideebaa la isugu daraa ama loo kala jaraa, sideebaa waxaan ku xijinaynaa la isugu dhuftaa, sideebaa se la isugu qaybiyaa ama loogu qaybiyaa decimalka. ugu dambeyn waxaan ku gabagabaynaynaa sidee fractionka iyo decimalka la isugu bedelaa. ilaa waa laba siyaabood wax loo qoro. aan ku celiya mar kale, waa maxay decimal? decimalku waa sarif oo kale, waa sanuud oo kale, waa wax ka yar laftigiisu dhibcuhu marka wato wixii dhibicda ka sheeya waxay noqonayaan wax ka yar jaj watan la yiraahdo jaj meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdaa decimalku dhibcaha waxaa la yiraahdaa wax ka yar hal wayasna. laakiin sidee loo qoro hadda rubuc markii loo qoro fractionka hadaynu u qorno rubuc, hadaynu u qorno halkaan dhahno rubuc, hadaynu u qorno fractionka hadda rubuc fraction wuxuu la eg yahay eber dhibic 25. wuxuu la eg yahay eber dhibic 25. sidaad aragtid fractionka iyo decimalka midba midka kale waa loo rogi karaa. waa isla meeshii laba siyaabood wax loo qoro. mid wuxuu leeyahay 4 meelood oo meel, midna wuxuu leeyahay dollarka haddii loo qaybiyo 4 meelood qaybtiisba waa rubuc oo waa 25 senti. waa 20 iyo rubuciba muxuu yahay 25 senti. 25 senti haddii la isku darana dollar ba isku noqonaya. kana sidoo kale 4 rubuc haddii la isku daro wuxuu isku noqonayaa $1 buu noqonayaa. marka decimalku waa hab kale ee loo qoro xisaabta ka yar halka hab, halka ka yar. marka aynu ka bilowno waqti badan inagoon gelin isku darka iyo kala goynta. waaya sharciga koowaad ee isku darka iyo kala goynta. isku dar iyo kala goyn baan bilaabay. sharciga koowaad ee isku darka iyo kala goynta hadda warkayga dhageyso soo qoran halkan hadda kuma soo gudbin computerka midka aan ku qoray waan idin soo muujin karaa waqtigeeda kaas waad ka shaqeyn doontaa maybe. kan hadda sharxan gaaban waxaan rabaa in dhageystaan. ka waran 2.5 waxaa ku dartaa eber dhibic 2.5 plus 0.7. maxaa leedahay? what you gonna say about it? addition instruction isku dar baan ku iri. well waa sahal. sharciga koobaad ee isku daridda wuxuu sheegayaa kala jaridda line up the decimals. wuxuu leeyahay line up the decimals. line up, just line up the decimals. line up the decimals. waxaad saftaa oo sintaa jajabka decimals. maxaad saftaa oo sintaa? waa inaad sintaa ama isku aadisaa dhibcaha kadibna aad ka shaqaysaa xisaabta. maxaad samaynaysaa? waxaad isku aadinaysaa dhibcaha, markaas ayaad xisaabta ka shaqaynaysaa. haddaad mar dhibcaha isku aadisid. teeda kale waxaan ii sheegaya ardada inta badan oo khalada decimalka waa arka waxay ku khaldaan dhibcaha markay isku aadiyaan xataa tira kuma aadiyaan. waxaa arkaysaa tirooyin meel cidla ah iska yaacay. kan hadda marka 2.5 midkood baan qoranaynaa sidaan isugu aadina xalena 2.5 2.5 waaya. kan eber 7.7 baan soo qaadanaynaa. horta dhibicdii baan dhiganaynaa ebertii. saas u qornay Soomaa eber 7 u qornay Soomaa. xalena dhibicdii ma dhibicda ku aadinaday waa isku aadin isku line baan ka dhignay. marka dhankan midig waxaa ka xiga numberka ku xigaan ku xijinaynaa 7 ayaa ku xigta. 7 ayaa ka dhanka bidixna eber baa ku qornay. eber baa ku qoran. marka isku dar 5 7 ku dar waa 12 labadooda 12. so 1 plus 2 is gonna be what? 3. mar haddaad dhibcii isku aadisay isku aadan yihiin hoostooda usoo durki. hagga usoo durkinaysaa hoostooda soo aadi. marka maxay noqonaysaa 3.2. maxay noqotay 3.2. hal arrin marka aan raba inaa ogaataan eberkaas la socda 7 ama 25 waa lagu buuxsaday meesha. waa qurux isha inaad qabataa la rabaa dhibicda, laakiin ma looma baahna. baahna marka la yaabin hadaynu marmar eberta dhigi weyno. aynu soo qaadana mid kale een dhahno ka waran hadaynu isku kala goyno 7.25 iyo waxaynu ka goynaynaa eber dhibic eber
labo $7.25 wax ka goynina eber dhibic eber labo see yeelina tilaabada ugu horeysa waxaan samaynaynaa bal midkii noo qornaa baan qoranaynaa dhibicdaas halkaas taagan oo halkaa jirta ayaynu waxa ku soo aadinaynaa dhibicda hee baynu waxaan isku aadinaynaa dhibcaha see baynu isku aadinay dhibicdan baan soo qaadanaynaa halkaasaan ku aadinaynaa waayo maxaan ku aadinay dhibicdii waxaan ku aadinay dhibicdii halkaa taalay dhasamalkii waxaan gelinay booskii tii kale aan ku aadinay isku hagaajinay labada line baan ka dhignay wixii ka dambeeya soo maaha waa ixtiraamaynaa wax walba dhanka ka jireen baan ku qoraynaa dhankan waxaan ku qoraynaa eber baan ku qoraynaa dhankan maxaa ku xiga labaa kusii xigta labadan ku xijinaynaa dhankana eber baa hadda ku qornay hadda war kama jiro hadda markaa wixii ka dambeeya wixii ka dambeeya hee waxba kama jiraanin waseebayna oga jirin waxaan leenahay 5 laba ku dar waa 7 labadana soo deji waa 2 7 soo deji waa 7 dhibicdiina hoostooda soo aadi dheer soosi halka geed maxay noqotay wixii 7 dhibic waxay noqotay 27 senti bay noqotay 7 dhibic hee 27 senti ayay noqotay inaan kala jarnay ahayd isku dar aan ka soo qaadno markaan haddaynu kala jarayna kala jarku waa isla sidii wixii un baan kala jaraynaa hadda aan dhahno meeshaas hore aan ka dhigano meeshaas way naga khaldantay andahana intaan ku celinayn balaas aan ka dhigano soo halkaas waa balaas waa isku darid haddaynu kala jarayna ka soo qaad inaynu kala jarno laftigeedoo kale aynu kala jarno aan dhahno 7.25 intii oo kale ma dhahnaa 7.25 minus 0.3 and dhahno 0. ma dhahnaa 0.04 xumaynayna 0.04 waa ware xisaab lacag fara badan baa wax laga jaray lacag aad u yar hay annaga shaqadeena maaha stepkooda waa naqaana halkaasaynu waxa ku aadinaynaa dhibicda halkaas ku aadinaynaa meesha ay joogto dhibicda waxaan ku aadinaynaa meeshaas booskaas aan aadinaynaa line up ko halka waa line up garaynaynaa labadaas so waxaan leenahay 7.25 noo qor mar kale 7.25 minus waxaan leenahay 0 pointiga halka markaan dhigno maxaa dhanka ku xiga 0 ku xigta saad aragtay 0 ku xigta 0da ku xigtay 0 maxaa kale ku soo xigay 0 kale ku soo xigtay 0 kale maxaa ku xigay 4 ogow 4 ka ku jacburin meeshaan banaankaas u taagay banaankiisa jooji halkana 0 ahayd hoostaynu ka xariiqaynaa waxaan leenahay waa kala goynayna halkan waxba ma yaalaan moogtiin halka hadii waxba oolisay yeelina waa buuxsanayna maxaan ku buuxsanayna eber weyn ku buuxsanayna eber taamado meeshan ku buuxsanay 10 afrika go waa 6 afar waxaad ka goysaa waxba afar labada waxba ka goyn dhibicdii sida hoostooda 7 waxba kama goyn marka waxay noqotay $7 246 sent waa macquul 250 sent maxay tahay $7 iyo 250 sent haddana maxay tahay $7 iyo 246 sent halka ayaan rabaa inaan joojiyo saacada xogaa iska oroday ka harin mar dhow exercise man ka shaqeynayna marka dambe oo ah addition iyo subtraction fraction ka ayaanu ka shaqeynaynaa kadibna isku dhufreen ku xijinaynaa word problems baynu ku xijinaynaa fraction iyo decimal si la isugu bedeli doono ayaynu ku xijinaynaa halkaas ayaan rabaa inaan kaga tago intaas wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada